garowe maxaad ku soo aragtay boosow hadda xamaraad joogtay bal xaqiiqda inoo taabo daarood iyo hawiye markay imaado martisoor yaa laan dheereysanoo gob ah ilaan adaa dhul dheer maray waa su'aalo commentiga lagu weydiiyey message lagu soo qoray bal caawa waqti u haystay inaan ka jawaaban rabaa waxaan rabaa oo kale shacabka Soomaaliyeed bal inaan update ka siiyo shirka dani iclaamiyay dib u heshiisiinta sibay dani ugu wacan tahay xasanna ugu daran tahay sibay xasan ugu wacanto dani ugu daran tahay waxyaabaha la kala boodsan yahay ayaan rabaa bal caawa inaan update ka siiyo wixii cawada ka dambeeyana update baan nahay soo dhawaada mar kale waa duqii boos ahaa oo magaalada Muqdisho idin kala soo hadlaya su'aalaha wiyahay weydiiyeen baa jira iyaduna ay leedahay warniyo xamar amnigeeda ka waran haddaan taas soo koobo nin gurigiisa madax ka ah ayaa xamar haysta horto that's why ay nabad u tahay su'aalaha kale iska dhaafa checkpoint baa la dhigay nin damiir leh oo damqanaya ayaa xamar rag damiir leh wataa nin ma rag damiir leh oo damqanaya ayaa talada dalkan haya sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad marka amniga muxuu yahay ma deegaankiisa iyo dadkiisa qofku ka naxaya laakiin kuwii hore ka waran dadkaana ma dhalin lama dhalan deegaankan haddii kun qof ku dhimatay haddii 2 kun ku dhimatana kala ma jecla ma seexan maayo xasan seexan maayo haddii hal gabar caawa dhimato that's why amniga uu sii xoogaysto horto waaya intaasna amni aniga kuma soo dhiiradeen ba haddaan amni jirin waayahay soo dhawaada garow maxaad ku aragtay daarood iyo hawiye gubsan horta hawiye iyo daarood waa dad wada dhashay oo challenge ka dhaxeeyo weey waa run garow waa tagay 2 cisho 3 cisho ayaan moogahay dabcan si wacan baa horta loola soo dhaweeyay saaxiibkayga Captain Ayub iyo teamkiisa iyo madaxtooyada dani si sharaf badan oo qiimo badan oo karaamo badan bay noo soo dhaweeyeen waliba aniga waxaan watay fikirkayga ah birmada Xasan Sheekh baa taageersanahay anoo garow jooga waliba Xasan Sheekh teamkiisa ka soo tagay fikradii hawiyisamkan waa xibaarsanaa maadadaasna way ugu badan tahay qofka markaad aragti aad ximbaarsan tahay price fiican ba agtiis ka goysaa qiimad leedahay laakiin qofka markaad leeleeftay qabiil kale waxba qiimo ma liid waaya Soomaalinimo marka qof kasta wixiisa inuu wato aniga raali ah ka dani inuu ciisa wato boos kale wixiisa wato garowe ma jeerteenku sidiisaba markay daarood imaado qabiilka ugu xadaarada badan waa wali mid kamid ah qabiilada Soomaalida ugu xadaarada badan waay waana qabiil gob ah oo nasaba loona martin karo ina ishaynana waa wax gaar ah dhalinyaro kala barta taas waa taas daarood iyo hawiye keeba gobsan horta anigu qabiilkayga gob baan ku dhihi maayo nasabnimo iyo gobnimo intay taallaa hawiye dhex taallaa daaroodna ma wada arkin ma jeerteenna waa gob martisoorka karaamada qofka ma jeerteenka haddaad la kaftanto oo wax walba aad tiraado cuqdad ma yaqaano laakiin daaroodka kale haddaad la kaftanto 10 sano cuqdad bay ku hayaan horta taas waa lan gaabnimo ma jeerteenka marka shuruudihii dhan waa soo buuxiyeen inaan ishayna maahane waana ayad quraan qofka ka soo horjeeda xataa cadaalad baa loo sameeyaa rag dhalay oo loo martin karo laakiin akala fikir duwana hawiye waa fantay soma hawiye nimba igu yiri cali masaarka dani anagoo joogna niyo hawiye daarood ka waran caawana midiga wara markay imaado shacabka daarood iyo shacabka hawiye waxa ilaahay igu ogyahay billahi wallahi igu billahi igu tallaahi shacabka hawiye xadaarisan shacabka hawiye iyo shacabka daarood marka la yiraahdo shacabka hawiye xadaarad hadii la yiraahdo minna sababta wax kala ma taqaan qabiilo kala duwan baa koonfurta isla daga nin aabahay awowga doobin jiro ku dhahay male ka maal badan ka geesisan ka xoolo badan hawiye ma faanaan waa xadaariyin hawiye dad wax la cuni karana waa yihiin uqdad ma laha waxa laga yaabaa guriga ugu dhagan hadda nin waxa degan ogaadeena mid kale oo dira iska degan mid isaaqa iska degan halkaas maaha laakiin shacabka hawiye xadaari minaha markay siyaasad iyo madax imaadaya xadaarisa waa su'aasha marka daarood ba xadaarisa siyaasiyiintooda rumbal raamut madaxda hawiyaha waa laga xadaarad badan yahay laakiin shacabka daarood waa laga xadaarad badan yahay waa ilaahay baa saas xadaarad nooga dhigay oo maxaa weeyri dani cali masaarkiisa cid Soomaaliya oo saameyn leh oo ka maqan ma jirin ama Instagram qofku hal lahaado ama ugbaad aragsan ha noqoto ama farxiyo fiska ha noqoto kulli waa loo wacay ma garanayo inuu asagu update yahay dheeraada
ama in tiimkiisa meediyaha update ay yihiin bal cali guud laawo ubad aragsan ma taqaan adigu qorqorow fiska ma taqaanaa waa galmuduge anaag murusada ma oga madax kale uun ba ka sii dabartaan marka daaroodka xataa farmaajo fiiri update hadii loo iyo meediya iyo daaroodka madaxdooda waa yaqaanaan kuwaan hawiye allahood alla weeye laakiin shacabka hawiye xadaari oo nature ah waa hataa mid la tababara ma madaxda daaroodka waa tababaran intaas marka waa kaga gudbaya reerba wuxuu ku fiican yahay balance عقدنا مجرتو بدان سيل عن الويستاي باسبور هوية ليه هاي أو يوغان اللي قد يكره مجرو مد دارود ليه هاي أو بوله انترناشنال اللي قد يكره مجرو والله نيرا شيء نسا والله مجرت لكن جالن جوكو اسكفرويه وعادة بني آدم لا ما نتهلا دم دون وفرنات دون عدي قف كسر نسبي ده كتجين وقضب وعربينا يدل المرة الشركة الدنيا عليه مساركيس وكل إعلامية مقالة الجروية وانقيب كأهين ومدحنا السويري أبديت كسر وين عن السيو مدحوينا حس الشيخنا واقع بلاي هرت مدحوينا سومالي وحن كو أمانة يا ولي بدارات كو أمانة يعني ما هني برمدي سجوا دريس هايان حولها وجيت هايو تنتكم بحده أو أن هبين إيمان السحن تاني ودولة فرقها وجدجن يا إنه أنتوا أتجي على مسار كيس كقريب جلي جوري كودجن أودجي صاب بخرب وصلى بتورت أستامي مدحتنا مدى leadership حس الشيخ وايه دني هدوم مدحوينا أهل الله مانت example حس الشيخ أهل الله مدحوينا ما مرقولة دني مين مالين سلم هذا فرماجو واحد نقطة مدحوينا الدني هنبلي علينا هاي كل واجب استمرت بوتا لاندير لا يقول بس إيجا قرأ أنت أنا ففاينتي دينجل أبديت كشركاس دني حسن بقى كتر تما يدل كانتي ما كان في شباش أنت كلا الله ونحرست وايه حسن الشيخ محمود مرك مرحلة هذا تاجنا دي الشيء جاي موته مدحوينا حسن الشيخ متبالي حديث إذا دني أوربه مدح ذي خوري كوا اللي جت مسك هيسن شرعية ده الشركة قيب كان نقدان ودني معناه أقول يا ري قاعد مدحوينه وأغبى شيء حداد كقيب قشو ميل فرماجة جوجو وحاف جوجو وسياس غير جوجو وشريف جوجو نمنا هذا دلك مدح كانوا مدح صون نقدر لكن حسن الشيخ وكسو فشل ما يالكاس ما أنت بدها اللي يقرأ سببت معي تاي حسن كراستا كوا كم غن يا aad bay u diidan wuxuu wado oo leen kursiga rabaan hadii dani uu kuwaas u yeertana waa garba dheeraada horto siyaasadda waa taqaanaan ma anfacayso waa qodob dani saasoo rabaa oo hadhow waxa la rabaa in la yiraahdo shirki xasan baa ka tagay waa faantay Soomaa hadda filo Soomaaliya waxay wadaa in kuwa meesha laga saaro oo kuwa mandate ka haysto madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Fariistaan haddii saas ay dhacdana xasan bay ku wacantahay oo dani meesha soo ku jabay dani yeeli maayo taas sababtoo qorqor iyo lafta gareen iyo cali guud laaw iyo doorasha soo dhow xasan bay aadayaan marka baasha waa la isku milgeeyaa baasha fahma xasan intii shariif iyo qeyre iyo madax hore ee imaan lahaayeen inuu iska baaqdo yaa ayaa ku wacantaa baasha wayna dhici doontaa mid iga qora faahfaahin dheeraad ma galaayay korka goosta baasha waayahay haddii intaasaa update ka siin doonaa wixii caawa ka dambeeyana live waa page-kan iyo barta YouTube-ka wixii update dee xamar baa joogay yaa awal baan fiilan jooga update ahay anoo xamar jooga ka wacane galab kasto insha Allah ama feed kasto halkan kala socda haduu ee bisaamaxo intii horena waa kaftan intaana waa siyaasad intaasana barnaamijkayga habeenimo kusoo gabagabeynaya inta barnaamij noocan ah ku kulmi doonana waa Cabduqaadir Booska oo ku leh حمر عدي سيف واي باي باي